وايلك تليه انت جيه دود يا halkan waa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxa halkan ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxa ka dhacday rasaas baa gudaha jeelka ka dhex socota walaalo nabad hayo jeelka rasaas baa ka dhex socota waxa la sheegayaa lama hubo siday wax u jiraan balse ilaa hadda jeelka rasaas weyn baa ka dhacday qoryaal la galay baa la sheegayaa jeelka ciidamada asluubta oo dhan baa jeelka isku xeeray bilayska ciidamada oo dhan baa hadda ku sugan goobtani waa jeelka hortiisa xabad waxay ka dhacaysaa jeelka gudihiisa waxa la ii sheegay halkan inay ku dhaawacmeen askar badan oo ciidamada asluubta ah ee jeelka ilaalinaya ayaa dhaawaca wararku si ay sheegayaan halkan ciidankii oo dhan baa jeelka isku xeeray wadooyinka ayaa la xidhay halkan wadada ayaa xidhan wadadani waa wadada hormarta jeelka weyn ee magaalada Hargeysa jeelka weyn ayaa waxa ku yaala bartanka caasimadda Hargeysa ciidamada asluubta ayaa isku wada xeeray qoryaal la galay ciidanka dhagaxaan baa gudaha lagala dhacay sida la ii sheegayo sidoo kalena ciidamada oo dhan ayaa halkan soo gaarayay gaadiidka gurmadka ciidanka kala duwan ee bilayska iyo ciidamada asluubta ayaa soo gaaraya boqolaal ciidamo ayaa isku yimid halkan haatan jeelka gudihiisa ayaa xabadu ka dhacaysa waxa ugu weyn ee meesha yaala waxa weeyaan in jeelka xabada ka dhacaysa ay tahay in gudihiisa jeelka ka dhacayso saas darteed waxay muujinaysaa xabadu in jeelka lala galay qoryaha oo qoryo jeelka gudihiisa lala galay sida aan ka maqlay qaar ka mid ah ciidamada booliiska waxa dhaawacmay ciidan badan baa dhaawacmay ciidamada saldhigyada kala duwan baa hadda soo gaaray goobta way akirantay banaanka hore ee jeelka weyn ee magaalada Hargeysa taliyaashii saldhigii yimid xabadu gudaha ay ka dhacaysaa ma jirto cid dibadda u baxday ilaa haatan laakiin waxa la ii sheegay sida saraakiil bilaysi sheegeen inay dhaawacan yihiin askar fara badan oo gudaha lagu dhaawacay oo cid qoryaha la gashay ay ku dhaawacday ciidamada la dagaalanka argagixisada ayaa hadda soo gaaray jeelka hortiisa ciidamada la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaan RRU-da ee tababaran ayaa hadda u daadanaya jeelka gudihiisa oo hadda soo gaaray jeelka gudihiisa mayo caadi banaanka waa banaanka tali waa dacwo waa banaanka wadadaynu ka hadlayno iska duubo saari doontaa way tali wad maasan ها وايتلي وانقات هاي ودوينك oo dhan waa la xidhay ha ilaa hadda lama garanayo waxa gudaha ka socda laakiin wadooyinku waa xidhan sad arkaysaan ciidamada RRU-da ee la dagaalanka argagixisada ayaa hadda gudaha u galay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxa wada xidhay dhammaan ciidamada qalabka sida ayaa wada xidhay wadooyinka tobanaan baabuur oo ciidamada booliiska ah goobjoog ah xaj saacad lama baahnay saacad tali xaaladdu waa sidan ciidamo bilaysa la dhaawacay waa la qaaday ciidamo asluubta ciidanka asluubta ayaa jeelasha ilaaliya Soomaaliland oo dhan ciidanka jeelasha asluubta oo ah ciidan muddooyinkii ugu dambeeyay si xoog ah u dhismayay isla markaasina ahaa ciidan si fiican loo tababaray nidaamkooduna kor u kacayay sanooyinkii ugu dambeysay ayaa waxay yihiin ciidamada ilaaliya jeelasha ee loo yaqaan asluubta iyaga ayaa isku xeeray hadda ciidanka la dagaalanka argagixisada ee tababaran oo iyaguna ku tababaran qalabkoodii wajigu duuban yahay ayaa hadda u daatay jeelka gudaha u galay iyaguna dad dhaawac ah ayaa jeelka ka soo baxay oo iyaga laftoodu دعوة تليها ولا هذا ليش تجي وادي تليها ولا تلي دعوة دي وارني كان دعوة له وارني ما قرن سفرة وارنا
aniga noo kaxayo anaga taliyaha waa taliya dacwo anaga wada soconay adiga markaad inay halkaa ku dilisay maana anu kusoo wada dhaafino taliyaha كي راي مدوغا عسكري بقى دلايدي ولا يويا عسكري بقى دلاين بلا اسكابا يويا انا وقت قبطت جديدي سما ما قبطت والله في عمر واحد هذا لو كله كله تعال وين اي هذا تو وين عاوز تعال مع بسميه ما هو واحد ثاني مركب ليجا ليجا سكت وزير سيد وزير تعال هاي الحمد لله وزير وزير كريمها gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa hadda soo gaaray jeelka weyn ee magaalada Hargeysa wararku waxay ii sheegayaan inay maxaabiista gudaha tahay laakiin lama hubo ilaa hadda wasiir karimaha gudaha ayaa hadda galaya jeelka weyn ee magaalada Hargeysa xaaladuna waa sidan Aydris iska warrama see leeyahay ma fiicantii seeti عبد السلام صور رمى سيلي هاي في عندي الحمد لله ما شاء الله إذا هم الدوين كلهم بحرن Alright. ما شاء الله. أي كانوا يسوون نقدين. وزير كريمها gudaha taagan haatan ilaa hadda cid baxsatay ma jirto gudaha ciidan kuma baxsan jeelka ciidamada dhan baa ku wareegsan wadooyinka waa la wada xidhay ammaanka waa la wada adkeeyay بدنا ويستاكتي وزير كريمها بدنا نقول كيشوجا
Tiger! On y allait assis, Gogo! Security. Security soo dhaqsado waxaad samaysaan. Way. عليكم السلام. الرصاص waxay ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa gudaha ayay ka dhacday warar sax ah lama hubo aan sheegi karo ilaa hadda sida wax u dhaceen war sax ah oo toos ah lama hubo laakiin waxa la ii sheegayaa inay dhinacna yihiin xabiis gadooday oo gudaha xabada ka ridaysay oo askar dhaawacday dhinacna waxa la ii sheegayaa inay aan warku laakiin saxay nin walaal كلمة قناة guud ahaan wadada weyn ee jeelka weyn ee magaalada Hargeysa hormarta ayaa xidhan booliiska wadooyinka oo dhan bay xidheen way adagtay in maaragtay wax badan la soo gudbiyo laakiin jeelka weyn ee Hargeysa ayaa imika ciidamadu ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku jira taliyayaashii ciidamada ayaa yimid ciidanka asluubta galay ciidanka aariyarida ciidanka bilayska guud ahaanba saldhigu banaankiisa iyo hareerihiisa oo dhan waa ammaan wadooyinka waaweyn horumar oo dhan waa la xidhay cidna lama ogola Yeah. Ha. Way. Way.
Usoo wararka ugu dambeeyay aan ka helayno ciidanka bilayska Soomaaliland iyo ciidanka asluubta waxay sheegayaan inuu goobta ay ku xidhan yihiin argagixisada ciidamadu ay gacanta ku hayaan ee jeelka weyn ay maaragtay kacdoonka sameeyeen إليك سكور وسيتي وفي الحمد لله حاجة فريسة السلام عليكم. عليكم السلام. تلي سكورن سيلي تلي في عنتها الحمد لله. هلو dabadeen kastay adag tahay inaan si xog rasmi ah idin soo warrano oo si toos ah idin ku soo gudbino wararka laakiin nuxurka ugu weyn waxa weeyaan ciidanka waxa ku gadooday maxaabiista argagixisada ee ku xidhan gudaha ee ku eedeysan argagixisada ama ku xukuman oo loo yaqaano blog ee ku jira ee jeelka weyn ee magaalada Hargeysa in ka badan 300 oo askari ayaa hadda golay gudaha jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ciidankaasi ayaa hadda la doonayay in la tacaalaan ilaa hadda lama xakameyn xaaladda gudaha oo ciidamadu dhagaxaan bay la dhaceen maxaabiistu ilaa 6 askari ayaa la sheegay inay nabar loo geystay oo la dakhray oo dhaawac loo geystay oo maxaabiistu ay dhagaxaanta la dhaceen 6 askari laakiin wax sax ah oo toos ah ilaa hadda ma hubno 300 oo askari oo kala duwan oo ciidanka argagixisada la dagaalama ayaa iyaga laftooda gudaha ugu jira jeelka oo ciidankii asluubta ciidankii bilayska ciidanka RRU ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa goobta ku sugan oo jeelka weyn gudaha isna u galay shaqada gudaha ay ka socotaa ilaa hadda xog rasmi ah lama hayo wararka hordhaceen ka helay bilayska un baa inta sheegaya laakiin waxaanu eegi doonaa bal wararku halka ay ku dambeeyaan waxa saxda ay noqoto inkastoo aan ciidanka dhagaxaanuun lala dhacaysa la sheegay oo rasaas gudaha ay ku haysteen aanay jirin qolada la yiraahdo argagixisadu sida ay sheegeen ciidamadu oo ku jira block ee ciidanka ay ku ilaaliyaan asluubta jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo jeelka ugu weyn Soomaaliland iska warrama maxaad haysan soo lama fiicna أظليه هذا أريا السيارة وسيلة ما كثير ciidamadu wax walba way xakameeyeen gudaha ku jiraan iska waran Hey.
نمر هذا واه مشروع عوضه كيف لو شيء انا صار حرق قاعد صار انا شوف هذا حاضر وضوحني انا واقف طبعا في اللي كنت بسني غير كذا وانا حاجه حاضر وانا كذا غير كم حاجه غير حاضر وضني ما تدري من قلت لك انا سؤال انا كذا ماشي انا سؤال يلا انا شو الناس قالوا والله انا حاجه ولا انا صعب والله ما حكينا انه كذا ورقه ابوك انا سوى انا حلق انا سبب ساعد لك انا صوصي انا صوصي ولا ترى دوبي ما هو يلا انا صاير هو دوبي هذه وتري فيش ابو قاعد انا دوبي انا كنت تعال يعني محمد انا وزير تقريبا gudahood taagan bal shaqeynay maxaa diya kuuga waariga kaaga diya kuuga